ciid wanaagsan dhageystayaal mar kale warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku bilowno arbacada la soo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale muddo kordhin u sameeyay sharciyada howlgalka ciidamada midowga Afrika ee jooga Soomaaliya iyo in la dhimo tirada ciidamada dhamaadka sanadkan qorshaha dhimista ciidanka AMISOM ayaa u gogol xaaraya sidii ciidamada Soomaaliya loo xoojin lahaa marka ugu dambeysana loogu wareejin lahaa ammaanka dalkooda wariyaheenna Maxamed Cawad Xasan oo stuudiyaha ugu weheliyay ayaa warbixintan ka diyaariyay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waa howlgal nabad ilaalin oo uu maamulo midowga Afrika laakiin ogolaansho ka haysta qaramada midoobay sharciyada howlgalka waxa ugu waaweyn taageerista dawladda Soomaaliya hirgelinta qorshe qaran oo dhinaca amniga ah ilaalinta marinada gargaarka iyo ku gacansiinta dawladda Soomaaliya ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab howlgalkan ayaa waxa uu ku bilowday iyadoo AMISOM ay haysato ogolaanshaha golaha ammaanka ee midowga Afrika oo siiyay muddo 6 bilood ah 19 bishii January sanadkii 2007 wixii markaa ka dambeeyayna waxa marka ka dambaysa loo sameeyay muddo kordhintii ugu dambeysay ayaa arbacadii la soo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu AMISOM u korriyay inay ka sii howlgasho Soomaaliya ilaa iyo 31 bisha May ee sanadka soo socda ee 2018 waxa kale oo uu goluhu ansixiyay in la dhimo tirada ciidamada AMISOM oo laga soo reebo ugu badnaan 20626 askari marka la gaaro 30 bisha October ee sanadkan halka markii hore ay ahaayeen 22126 askari qorshaha AMISOM ayaa in si tartiib ay ammaanka Soomaaliya ugu wareejiso ciidamada Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qaraarkan muddada lagu kordhiyay AMISOM sidoo kale go'aan ku gaaray in AMISOM ay mudnaanta koobaad saarto fulinta weeraro bartilmaameedsan iyo howlgallo ka dhana al-shabaab iyagoo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya qaraarkan ayaa waxa ka soo shaqeeyay dawladda Britain oo kaashanaysa dalalka ay ka mid yihiin Mareykanka, Talyaaniga, Ethiopia iyo kuwa kale danjiraha Britain ee qaramada midoobay Matthew Rycroft oo kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay arbacadii ka hadlay ayaa qorshaha wareejinta ammaanka ee AMISOM iyo dhimista tirada ciidamada AMISOM ku tilmaamay guul u soo hoyatay Soomaaliya. It's a significant turning point for AMISOM and for Somalia. For the very first time in AMISOM's waxa uu yiri waa xilli kala guur qiimo badan ugu fadhiya AMISOM iyo Soomaaliya labaduba markii ugu horeysay muddo 10 sano ah oo ay AMISOM Soomaaliya ka howlgalaysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bilaabay inuu dhimo tirada guud ee ciidamada militariga ee la geeyay Soomaaliya buu yiri Ambassador Matthew ayaa sheegay in la joogo waqtigii la bilaabi lahaa in ciidamada Soomaaliya la dhiso si loogu wareejiyo ammaanka. And now it's time for a new approach to security to focus not only on tackling the threat from al-Shabaab. Haatan waxa la joogaa waqtigii tallaabo cusub loo qaadi lahaa dhinaca ammaanka. Mana aha oo kaliya in diiradda la saarayo halista amni ee al-Shabaab ay Soomaaliya ku hayso ee waxa muhiim u yiri bilaabista in AMISOM ay si tartiib ah ammaanka ugu wareejiso ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. sidoo kale waxa kulanka ka hadlay safiirka Ethiopia ee qaramada midoobay Tekede Alamu oo dalkiisu bisha soo socota madaxweynaha golaha ammaanka kala wareegayo dalka Masar oo haatan haya Ambassador Alamu waxa uu sheegay in Soomaaliya ay guulo ku talaabsatay laakiin halistii amni ee haysatay ay weli taagan tahay. Somalia is passing through an important phase in consolidating its state institutions, including the building of its national security forces. Soomaaliya waxay maraysaa buu yiri marxalad cusub iyadoo xoojinaysa hay'adaheeda dawliga ah oo ay ku jirto dhismaha ciidankeeda qaran taasoo gobol xaar u ah buu yiri ammaan wareejinta xaaladda ku xiran ee ay AMISOM sameynayso waxay u tahay guul taariikhi ah ummadda Soomaaliyeed buu yiri tani macnaheedu sama aha in caqabadihii ammaanka ee uu dalka wajahayay dhamaantood la xaliyay inkastoo guulo siyaasadeed iyo kuwa amni la gaaray sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya wali jid dheer baa hor yaala buu yiri gaar ahaan ka soo kabashada colaadaha iyo dhismaha nabadda. Ambassador Alamu waxa uu ka digay in beesha caalamka oo qaadan weysa doorka kaga aadan taageerista dhismaha ciidamada Soomaaliya ay halis gelin karto qorshaha bixitaanka AMISOM. The transition based on a coherent national security architecture requires an expedited operational readiness assessment of the Somali security forces. Ammaan wareejinta AMISOM oo ku dhisan qorshaha iyo istiraatiijiyadda qaran ee amni ee Soomaaliya buu yiri waxay u baahan tahay dedejinta qiimeynta sida ay ugu diyaarsan yihiin ciidamada ammaanka Soomaaliya inay hawsha la wareegaan waxaana qiimeynta ku jira buu yiri ogaanshaha faraqa iyo waxa ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya si waajibaadkooda ay u gutaan waxaase aan ka walacsanahay buu yiri in la waayo wada shaqaynta iyo isku duwidda taageerada dalalka bahwadaagta la Soomaaliya taasoo halis gelin karta buu yiri dibna u dhigi karta qorshaha AMISOM ee ka bixista Soomaaliya.
safiirka Talyaaniga ee qaramada midoobay Sebastiano Cardi oo isna kulankii golaha ammaanka ee Arbacadii ka hadlay ayaa amaanay guulaha ay dawladda Soomaaliya gaartay wuxuuna booriyay in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed oo xoog leh. The Somali government has achieved much progress from agreeing on the main principle of the national security architecture to the security pact for the coordinated development of the Somali security forces. The new framework dawladda Soomaaliya waxay ku tallaabsatay guulo waaweyn laga soo bilaabo heshiiskii laga gaaray qorshaha amniga qaranka iyo isku dubaridka dhismaha ciidanka Soomaaliya. qorshahan cusub dabcan wuxuu u baahan yahay waqti si uu si buuxda ugu shaqeeyo iyadoo halista ammaan ee al-shabaab ay ku hayso Soomaaliya ay weli taagan tahay buu yiri ayaa taasi waxay ahmiyad istiraatiiji ah siinaysaa baahida loo qabo dhismaha ciidamo ammaan oo xoog leh oo ay Soomaaliya yeelato. ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka la siiyay safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo isna ka digay AMISOM oo si degdeg ah uga baxda Soomaaliya iyadoo aan la taageerin sidii uu u fuli lahaa qorshaha ammaanka iyo istiraatiijiyadda qaran ee Soomaaliya inay halisteeda leedahay. It's critical that the transition is done in a cautious manner with sustained predictable funding to AMISOM. safiirka oo afka Ingiriisiga ku khudbeynaya ayaa yiri waa muhiim in xilliga kala guurka ammaanka loo sameeyo si taxadar uu ku jiro iyadoo AMISOM la siinayo qarash joogto ah oo ay ku shaqeyso maadaama AMISOM oo ku baxda si degdeg ah oo ku dhisan waqti kama dambaysta oo aan xaqaa'iq lagu salayn ay halis gelin karto guulihii ammaan ee ay soo hoyeen AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya buu yiri fariin qaldanna u diri karta cadawgeena al-shabaab mudane madaxweyne buu yiri hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ka go'an inay meel mariyaan qorshayaashan soo socda koow buu yiri hirgelinta isku duwidda iyo wada shaqaynta militariga booliska sirdoonka iyo maamulada madaniga laba buu yiri samaynta shabakad sirdoon oo xoogan saddex buu yiri adeegsiga ciidamo aan tiro badnayn oo si gaar ah u tababaran oo fuliya weeraro bartilmaameedkoodu sax yahay iyo tan afraad oo uu ku sheegay sii wadista weerarada ka dhanka ah kuwa kacdoonka wada. Soomaaliya oo xili lahayd mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan qaaradda Afrika ayaa haatan ciidamadoodu waxay waajibaadkooda la gudan laayeen caqabado ay ka mid yihiin mushaar xumo cunaqabatayn dhinaca hubka ah oo Soomaaliya saaran oo ka horjoogsatay in si buuxda loo qalabeeyo iyo ciidamada oo badankood ka kala amar qaata maamul goboleedyo ku dhisan nidaamka beelaha. ciidamada Soomaaliya ay hadda haysato duruuf kasta ku shaqeeyaan waxay taageero iyo indhaba u yihiin ciidamada AMISOM sida ciidamada Uganda ee aagga koobaad ee ka howlgala gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ciidamada Kenya ee ka howlgala qaybta ama aagga labaad ee Jubbooyinka ciidamada Ethiopia ee qaybta saddexaad ee Bay iyo Boqol ciidamada Djibouti ee aagga afraad ee Hiiraan iyo Galguduud iyo ciidamada Burundi oo u xilsaaran aagga shanaad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoogaga diyaariyay arrimaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeeshay AMISOM halka aad kala socoteenna waa VOA cidda warbixintaasi ay dhaaftana waxay ka daalacan kartaa ama ay ka heli kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ciid wanaagsan meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak.